ee ah wax ka beddelka iyo soo jeedinta ku saabsan xeer 14/2011 talo sharci la taliyaha sharciga golaha wakiiladu markuu arkay soo jeedinta mudanayaasha ee ku saabsan wax ka beddelka xeer 14/2021 markuu arkay inay sax tahay tirada mudanayaasha ee soo jeediyey mooshinkan markuu arkay qaraarka maxkamadda sare sumadeedu ay tahay maada daadaala 2022 kuna taariikhaysnaa 16/02/2020 qaybtiisa afraad iyo lixaad iyo toddobaad ee doorashooyinka oo faraya dhinacyada ay khusayso inay hoggaansamaan dastuurka iyo xeerarka dalka markuu arkay in mooshinkani uu waafaqsan yahay dastuurka iyo xeerarka dalka si awgeed mooshinkani waa sharci waafaqsan dastuurka iyo xeerarka golaha garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil waa mooshinkii hore waa sharci mooshinkaas mooshinka labaad wuxuu wax ka beddelka xeerka guud ee doorashooyinka xeerka guud 91/2020 markuu arkay wax ka beddelka qodobka 7 ee xeerka guud ee doorashooyinka ee ka hadlaya doorashada xisbiyada golayaasha deegaanka markuu arkay soo jeedinta mudanayaasha ee ku saabsan mooshinka wax ka beddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha markuu arkay inay saxsan tahay tiradii mudanayaasha soo jeediyey markuu arkay xeeroosaadka dastuurka qodobadiisa afraad iyo qodobkiisa 14 markuu arkay dastuurka iyo xeeroosaadka golaha wakiil markuu arkay xeerka doorashooyinka qodobadiisa 14 markuu arkay dastuurka iyo xeeroosaadka golaha wakiilada wuxuu soo jeedinayaa garyaqaanku in mooshinkaasi yahay sharci goluhuna geli karo garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil labada mooshin ee la soo jeediyeyba waa sharci goluhuna awood wuxuu leeyahay inuu ka jawaabo